الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومركل يدرسين امتحانها إنه أهيد وسديد bisha shanaad ee Jumaada al-awwal 1440 hijriga waa maalinimo isniin ah habeen talaado ay soo galayso maanta oo kale waxaan qaadan jirnay aan ku balansanayn siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan qaadano ileen maalmaha waxaan u qeybinay shanta maalmood maalinka sabtida inaan qaadano xadiid maalinka axaddan inaan qaadano fiqhi sida shalay oo kale aan kusoo qaadanaynay ribada insha allah hadda soo socotaan dhamaystiri doonaa ribada iyo wixii ku saabsan maalinka isniintaana oo maanta oo kalena ah siirada nabiga inaan qaadano sidaasaa jadwalka noo ahaa calayhi salaatu wasalaam maalinka talaadadana tafsiirka inaan wax ka qaadano maalinka arbacadana naxwa sidaasuna jadwalka noo ahaan doonaan insha allahu tacaala haddan intaas xusuusin ayay iga ahayd marka maanta isniinta waxaan kusoo qaadanay maalintuu nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam saa darteed waxaan kusoo qaadanaynaa siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hore walaalayaal rasuulkeeni nebina wuu ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulna wuu ahaa laakiin dadka rasuusha qaar ama ilaahay dadkuu soo diray ambiyadii qaarna rasuul keliya nebi keliyay ahaayeen qaarna rasuul iyo nebi isku ahaayeen sidii nabigeena oo kale calayhi salaatu wasalaam marka waxaa halkaas muhiim ah inaan ogaano nebi iyo rasuul farqiga u dhexeeya muxuu yahay walaalayaal farqigaa udhexeeya rasuul iyo nebi waxaa la yidhaahdaa waa huwa insaanu min albashar awxa allahu tacaala ilayhi bisharcin walaakinahu lam yukalaf bitabliiq waxaa la yidhahdaa nebi waxaa la yidhahdaa qof oo bani aadamka ka mid ah oo ilaahay u waxyooday waaye waxaana loo waxyooday sharci iyo diin laakiin laguma kalifin inuu dadka sii gaarsiiyo ummadaasi inuu sii gaarsiiyo laguma kalifin qofkaas waxaa la yidhahdaa nebi laakiin rasuul waxaa la yidhahdaa huwa insaanu min albashar awxa allahu tacaala ilayhi bisharcin wa amara allahu bitabliiqihi rasuul waxaa la yidhahdaa qof oo bani aadamka ka mid ah ilaahayna uu waxyooday sharci isla markaasna sharcigaas ilaahay uu ku amray inuu dadka sii gaarsiiyo ama ummadda markaas loo diray inuu gaarsiiyo marka halkaas waxaan ka ogaanay farqi inuu udhexeeyo miday ka wada siman yihiin labadoodu ilaaha u waxyoodo laakiin rasuulka wuxuu dheeryahay waxaa la sii amray dadka inuu sii gaarsiiyo diinta loo waxyooday laakiin nebi laguma kalifin halkaas waxaan durba ogaanay rasuul iyo nebi inuu rasuul fadli badan yahay uuna darajo sareeyo maxaa yeelay culammadu waxay yidhaahdaan ina kula rasuulin nabiyun rasuul walbaayi waa nebi walaysa kulu nabiyin rasuulan laakiin nebi kastaayi rasuul ma ahan marka rasuusha ilaahay uu soo dirayna aad ayay u tiro badan yihiin ma la koobi karo laakiin riwaayada qaar yaa waxay sheegaan in 120,000 oo rasuul ilaahay uu soo diray laakiin cadadooda alla keliyaa garanaya laakiin athar noocaas ah waa la wariyey imaam axmed ayaa warinaya asarkaas min xadiidi abi dhar alghifaari radi allahu canhu in rasuulka la weydiiyey uuna yiri 120,000 inuu yiri sidaas inuu yiri 120,000 inuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam imaam axmed aa warinayo inay ka badan yihiin way dhici kartaa intaa ka gadaal waxaan rabaa laakiin qur-aanka waxaa lagu sheegay 25 ayaa lagu sheegay qur-aanka kariimka ah intaa kadib walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqi illaah ilaahay subxaanahu watacaala intuu abuuray axadku khayr badan uu ahaa sidaasuu ahaa waana nebiyaalku ilaahay soo diray iyo rusushu ilaahay soo diraybo oo axadkii lagu soo qatimay waaye saa darteed ilaahay wuxuu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadi min rijaalikum muxamed ma ahan qof oo raggiinan ka mid ah aabahiisi ma ahaanin walaakin rasuula allahi waqaatama annabiyiin hase aatee wuxuu yahay rasuul ilaahay iyo
axadkii nebiyaalka lagu soo qatimay waaye. rasuul ka dambeeyana ma jiro, nebi ka dambeeya ma jiro. rasuulna isagaa lagu soo qatimay, nebiyaalkana isagaa lagu soo qatimay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi. intaa ka gadaal nebiga fadaaishiisii walaalayaal mala soo koobi karo. haddaan fadaaishiisu ku horumarno, horta nebiga calayhi salatu salaam wuxuu yiri xadiidkii imaamu tirmidi, ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa fakra, ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa faqra, wa biyadii libaau lxamdi walaa faqra. yacni aniga waxaan ahay caruurtii aadam caruurtiisii sayidkoodiiyaan ah, oo bani aadamkao dhanbo sayidkoodiiyaan ahay. maalinka qiyaamaha faanna ma ahan oo faaniga ma ahan. calanka mahadintan gacanteedu ku jiraa, yacni walaa fakra faanna ma ahan uu yiri. wuxuu kaloo nabigu yiri wa ana awalu shaaficin wa awalu mushafac, waxaana axadka ugu horeeya oo dadka u shafeecayaan ahay. markay rususha kale yani ay ka cudur daartaan, axadka shafeeci doonaan ahay. wa ana awalu mushafac, axadka ugu horeeya shafeecada laga aqbali doonana ama ergada laga aqbali doonana waan ahay. ilahi hanugu daro subxaanahu watacaala rasuulka dadku u shafeeci doono salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh. xadiidkaas imaamu tirmidi yaa wariyey. sidoo kale walaalayaal, sheekha la yiraahdo alcalaama alimaam alqaadi ciyaad, kitaabkiisa ashifaa, markuuna ka waramaya nabiga fadligiisa calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yiri nebiyaalka kale ilaahay markuu ka hadlayay rususha kale magacooda ugu dhawaaqay. qur-aanka bal fiiri, wuxuu yiri ilaahay markuu u dhawaaqaya nebi ibraahim, ilahay wuxuu yiri yaa ibraahim qad sadaqta ru'ya, ibraahimow riyadaada waad ka run sheegtay. magaciisii oo keliyaa lagu yeeray. sidoo kale ilaahay markuu nebi nuux uu ka hadlayay wuxuu yiri yaa nuuxu hbit bisalaami mina, nuuxow sidaasaa lagu yeeray, nuuxow waa lagu yeeray. nebi muuse markuu la hadlayana ilahay wuxuu yiri yaa muusa ini istafaytuka cala annaas, muusow yacni dadkan kaa doortay, risaaladii iyo hadalkiina waan kuu doortay. sidoo kale nebi ciise markuu ilaahay la hadlaayena wuxuu yidhi yaa ciisa bna maryam a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah, ciiseow ciisahaasoo ina maryamo ahaayow ma adiga dadka ku yiri aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta alla ka soke, sidaas ma adigaa ku yiri ciisow. laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay qur-aanka ku sheegayey yaa muxamed ma uusan dhihin. ilaahay wuxuu ku tilmaamay yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira, nebigaanow annagaa yani waan ku dirnay adoo markhaati, yani dadka ku markhaati kacayo, yani mid dadku bishaareynayo u digayana ah. marka fiiri aayad kalen yaa ayuha nabiyu xasbuka allah, nebigaanow ilaaha kugu filan. aayad kalena yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik, rasuulkaanow gaarsii yani diinka lagugu soo dejiyey oo xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii. aayad kalena yaa ayuha rasuulu laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr, rasuulkaanow yani yaysan ku muruga gelinin dadka gaalnimada u degdegaayo. saa darteed markaa rasuulka fadaaishiisa waxaaba kugu filanbo in ilaahay yani nebi iyo rasuul ugu yeeray. rususha kalena yani magacooda lagu yeri. intaas wuxuu yiri alcalaama alqaadi ciyaad. halkaas waxaa laga garanaa yani ilaahay subxaanahu watacaala siduu nebiga u fadilay ayaa laga garanaa. ayib walaalayaal, nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisii waa muxamed ibnu cabdillaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu gaalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu nadar ibnu mudar ibnu nizaar ibnu macad ibnu cadnaan. ilaa wuxuu gaaraa ismaaciil, nebi ismaaciil uu galaa ibnu ibraahima calayhim assalaam. nebiga awowyaashiisoo dhan yani qabiilo sharaf badan ay ka dhasheen, yani sidaasuu ahaa. imaamulbukhaari saxiixiisi wuxuu ku wariyey xadiidkii heraqle, ninkii ruum reer yurub boqorka ka ahaa, abaa sufyaan markuu u tagay wuxuu weydiiyey, wuxuu yiri kayfa nasabuhu fiikum, ninkan muxamed ah oo yani nebinimada sheeganayo idinka soo dhexba. abuu sufyaan markaas gaal uu ahaa, war dhexdiina nasabkiis siduu ku yahay. markaasuu abuu sufyaan oo xilligaas gaal aha wuxuu yiri huwa fiina duu nasabin, wuxuu yiri muxamed dhexdeena nin nasabkiisi aad u sareeyo, waa mid nasab u saaxiib ah.
markaasuu gaalkii Heraqla wuxuu yidhi yacni kadalika rusulu tubcathu fii ansaabi qowmiha rusushoo dhan waa sidaas waxaa laga soo dhexbixiyaa yacni qabiiladoodii yacni lafta ugu laandheereysan yacni laga soo bixiyaa yacni fii akrami qowmiha xasaban yacni qabiilka kan ugu sharafta badan yaa laga soo saaraa marka nabigeeni qorayshuu ahaa reer haashimu laga soo saaray marka walaalayaal marka nebiga dhalashadiisii haddaan galno nebiga walaalayaal wuxuu dhashay maalin isniin ah sida raajixa maalin isniin oo dhashay ayuu dhashay raajix maba ahane waaba la isku waafaqsan yahay raajix maxaa yeelay nebiga xadiidka imaamu albukhaari wuxuu yidhi yacni maalin isniinta wuxuu yidhi yowmun wulidtu fiihi waa maalinkaan dhashay uu yidhi waa la isku waafaqsan yahay laakiin culammadu waxay isku khilaafaan maalinkuu dhashay isniin inuu yahay waa la gartay inuu maka ku dhashana waa la gartay madiina inuu ku yani uu ku dhintana waa la ogyahay maalin habeen isniin yani maalin isniin uu dhintay laakiin waxaa la isku khilaafaa sanadkuu dhashay culamada qaar waxay leeyihiin siirada yani sida albidaaya wanihaaya ibnu kathiir uu soo guurinayo iyo maxamed ibnu isxaaq yani caamulfiil uu dhashay sanadkii maroodiguu dhashay kacbada kusoo duulayay sanadkaasuu dhashay culamo kale waxay yidhaahdeen maya wuxuu dhashay yacni caamulfiil kadib uu dhashay 50 maalmood kadib ayuu dhashay dhacdaas markay dhacday culamo kale waxay yidhahdeen maya wuxuu dhashay caamulfiil kadib uu dhashay 55 maalmood kadib uu dhashay dad kalena waxay yidhahdeen bil kadib uu dhashay dadna 40 maalmood kadib dad kalena waxay yidhaahdeen waxaasoo dhan maba ahe wuxuu dhashay bacda alfiil ب10 siniina yacni sanadkii caamulfiil ka hor uu dhashay 15 sano ka hor uu dhashay qaarna waxay yidhahdeen 15 sano ka hor uu dhashay marka sanadkuu dhashay aaday isugu khilaafeen laakiin culimmada xooga badankood waxay yidhaahdeen caamulfiil oo dhashay sidoo kale haddana waxay isku khilaafeen yacni bishuu dhashay culimmada qaar oo ahlu siyarka mu'ariqiinta waxay yidhahdeen bisha safar uu dhashay qaarna waxay yidhahdeen rabiicul aakhir uu dhashay qaarna waxay yidhahdeen rabiicul awal uu dhashay qaarna waxay yidhaahdeen bisha rajab uu dhashay qaarna bisha ramadaan uu dhashay oo soonka oo isku khilaafeen haddana waxaa xoog batay culammada tiri rabiicul yani wuxuu dhashay yani rabiicul awal culamadaasa yani haddana xoog badnaaday ayib haddana waxay isku sii khilaafeen rabiicul awal haba dhashee maalinkuu ka dhashay isniin waan ognahay laakiin taariikhda ma labeed ma saddex ahayd qaar culamadaas kamid waxay yidhahdeen rabiicul awal bisha mooliidka loo yaqaana labadeeduu dhashay qaarna waxay yidhahdeen maya wuxuu dhashay 8deedii oo dhashay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya wuxuu dhashay yacni 9keedii oo dhashay qaarna waxay yidhahdeen maya 12koo dhashay qaarna waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay yacni 17 bisha mawlid oo rabiicul awal qaarna waxay yidhahdeen maya yacni 28koo dhashay aqwaal badanaa ku jirto haddana waxaa xoog batay culummada tiraahday 12 bisha rabiicul awal oo dhashay marka taasaa hadda loo badan yahay marka sidaas waaye waqtigaa nagu fogaaday wallahu aclam wa sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed